فضلا سبسكرايب صار وبدأت هذه. salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhowaada silsiladii taxana ahayd ee taariikhda ciyaaryahanada xalqadii labaad waxaynu ku soo qaadan doonaa yaya tore. yaya waxa uu ku dhashay buuki evricos May 1983. yaya waxa uu ka ciyaaraa khadka dhexe, waxa uu ku hamaashaa lugta midig. joogdheeraha afrika ayaa waxa uu jeclaa yaraantiisa in uu ka ciyaaro weerarka tooska ah. sidoo kale daafac dhexe ayaa u ciyaaray finaalkii Champions League ee Barcelona iyo Man United 2009. halyeyga Manchester City aabihii waxaa lagu magacaabi jiray Muri Tore. waxa uu la dhashay 2 wiil iyo 1 gabadh oo kala ahaa Aisha Tore, Carla Tore oo ay ka wada ciyaari jireen Manchester City, iyo Ibrahim Tore oo dhintay 2014. yaya waxa uu la aqal-galay Geneva. daawadayaal iminkana aynu jaleecno waayihiisii kubadda cagta. yaya tore waxa uu xirfadiisa kubadda cagta ka bilaabay ASEC Mimosas oo ka dhisnay dalkiisa hooyo isaga oo jira da'da 18 jir, taas oo keentay inuu soo jiito indhaha kooxo waaweyn. waxa uu uga wareegay kooxda Beveren. intaa ka bacdi waxa uu ka soo ciyaaray Metal Donetsk, Olympiacos iyo Monaco. ka bacdeen 2007 waxa uu 9 milyan oo euro ugu wareegay kooxda ka dhisan gobolka Gonisutaka Catalan ee Barcelona. waxa uu u saftay 74 kulan isagoo dhaliyay 4 gool. waxa uu qayb ka ahaa Barca 6 koob ay ku guuleysatay waayihii wacnaa ee Pep Guardiola. intaa ka bacdi macalinka reer Spain ayaa waxa uu bilaabay inuu kursiga kaydka u dhaadhiciyo Yaya Toure, isaga oo daa'irada Barca ee La Masia ka wacday Sergio Busquets oo waqtiga qaangaadh ahaa. 2010 waxa uu boorsooyinkiisa u xidhxidhay waddanka England isaga oo ka tegay garoonka Etihad Stadium ee ay ka reemso Manchester City, isaga oo ku yimid adduun lacageed gaadhaya 30 milyan oo euro. waxa uu dib u helay waayihiisii wacnaa isaga oo 2012 kooxda lagu naanayso muwaadiniinta u gacan geliyay 40 sano kadib Premier League. hal sano kadib waxa uu mar kale la qaaday Premier League sanadkii 2014. sidoo kale FA Cup mar kale waxaa soo dhawaaday niyad-jabkiisii 2016. Pep Guardiola ayaa loo magacaabay jagada macalinimo ee Sky Blues. isla xilligaasba waxa uu bilaabay inuu ku hubsado kursiga kaydka. intaa ka bacdi waxa uu galay waqti qarow ah. sanadii 2018 waxa uu dib ugu laabtay kooxdiisii yaraantiisa ee Olympiacos. hal sano kadib 2019 waxa uu u wareegay kooxda ka dheesha horyaalka heerka labaad ee Shiinaha Hyundai High. kulankiisii u dambeeyay oo uu ciyaaro waxa uu qaatay kaarka guduudan 2 minit oo qura markii uu garoonka ku jiray. haddii aynu jaleecno dhanka xulkiisa, 3 jeer ayaa uu soo saaray World Cup 2006, 2010 iyo 2014. 2015 waxa uu la qaaday koobka qaaradda qaramada Afrika isaga oo kabtan u ahaa xulkiisa. 4 jeer oo xiriir ah ayaa uu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican qaaradda Afrika, African Player of the Year. daawadayaal waxaynu halkaa kusoo meeri doonaa silsiladii taxanaha ahayd ee taariikhda ciyaaryahanka xalqadeedii labaad oo aynu kusoo qaadanay taariikhda halyeyga kubadda cagta Afrika Yaya Toure. xalqada saddexaad ciyaaryahankii ayaad jeceshiin in aan kusoo qaadano, commentiga noogu reeba. fadlan subscribe, like nagu dhiirigeli.